الله وبركاته والله قيمة بدن كسر هذا كو سومالي ميديا والله طبعا كبشة شعبان سنة كنا فربغلا فرتن يتضبط تاريخ ده هجرية ده وفي نما سبتي أحد يسوق ليس وأنا صدني كودا بشة كوات سنة لبكن لح يلا باطن قضبض أقوى وين برنامج كان في نمعة وحكم ذا قرح وين أو جلجلي إيران قيبة بدن أو كم ذا أيا كدع يجودها الدلكاسي وحين قضب كن كو إيجي دونا يا كدم بيقرحن oo ku soo aaday xilli Mareykan iyo Israa'iil ay ku hanjabayaan weerar ay ku qaadaan gudaha dalkaasi iyo dawladda Iran oo iyana sheegtay inay kaga falcelin doonto weerar walba oo kaga yimaado Mareykan iyo Israa'iil jawaab adag haddaba qaraxa waxyeelada uu geystay iyo sida uu dhacay ayaan isla eegi doonaa iyo qoobta uu ka dhacay qaraxan weyn qodobada sidoo kale barnaamijka fiidnimada waad ku maqli doontaa iyana waxa kamid ah wasiirka difaaca boqortooyada dalka Sacuudiga Khalid Amir Khalid bin Salman oo kulan gaar la sheegay in Washington kula yeeshay koox Yahuuda oo u lolaya arrimaha Israa'iil ayaa waxa ay Yahuudi banaanka soo dhigeen kulankii sirta ahaa iyaga iyo amiirkaas dhexmaray gaaraan wasiirka gaashaandhigga haddaba muxuu yahay kulankan sirta ku jirtay oo ay Israa'iil soo shaaqaday ama ay soo bandhigtay ee saameynta yeelanayo sheeko cajiib oo arrinta ku saabsan iyo sidoo kale cabsi weyn oo warkani dhex dhigayo Iran iyo Sacuudiga oo dhawaan xiriir wanaagsan yeeshay qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto waxa kamid ah maamulka Netanyahu ayaa lagu waramayaa inay u suura gashay in kooxda Abdel Fattah Sisi madaxweynaha Masar ay ka dhaadhiciyaan qaar kamid ah dadka reer Gaza inay u soo gudbaan dhankaas iyo Masar xuduud Rafah la furo haddaba arrintan waa arrin culus oo hadda bariga dhexe ku soo kordhay iyo xiisada ka taagan gudaha Gaza sheekaya blayaan kaga haya qodobka ugu dambeeyana waxaad ku maqli doontaa mudaharaadyada ka taagan gudaha Mareykanka oo xadkii dhaafay magaalooyin waaweyn oo ay ugu weyn tahay Minnesota gobolka Minnesota Minneapolis ayaa waxa la xiray ganacsiyadii xaaladu meel adag ay maraysaa wariyihii la xiray isbuucan sababta mudaharaadyada dartood loo xirana Dan Lemon ayaa isla si yaab loo hadlay kadib markii la soo daayay ma jiraan wax ka fadli badan in lagaaga cumreeyo waalidkaaga baliyo shirkadda Najmuddin Hajj and Umrah waxay ku diyaarisay adeeg lagaaga cumreenayo waalidkaaga sida hooyo aabe iyo ehelkaaga shirkadda Najmuddin Hajj and Umrah adeeg la isku halayn karo hagayaal khibrad u leh oo ku sugan xarameynka Mukarrama kuwaas oo ka caawin doona ahkaamta gudashada umrada adigoo ku heli doona qiimo macquul ah waxa lagu soo duubaya muuqaal dhameystiran oo cadeynaya qaabka looga cumreeyo waalidkaaga hawdeyma la'aan adigoo ka jooga meel walba dunida ayaa lagaaga soo cumreynaya waalidkaaga ajirka ugu waa marka waalidkaaga ka cumrayso iyagoo dhintay adoo nool wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada hortaada ka muuqda soo dhawaada mar kale magacaygu waa Mustafa Ali halkan waa Kow Somali Media aynu ku bilowna barnaamijkeena fiidnimo caawa hal mar waxa la maqlay qarax weyn oo ka dhacay dalka Iran qaraxan oo ah warka ugu hadalhaynta badan oo ay sida weyn uga hadlayaan warbaahinta caalamka qaraxa waxa uu ka dhacay maanta dhismayaal la degan yahay oo ku yaala magaalada Bandar Abbas ee koonfurta dalkaasi sida ay warisay wakaalada wararka Iran ee Tasmin iyadoo aan la sharxin waxa uu ka dhashay qaraxyada ka dhacay magaaladan oo ay ku taalo dekada ugu muhiimsan Iran xilli la xasuusto maalmo ka hor inta uusan bilaaban dagaalkii 12aad ama 12ka maalin socday ee sida weyn u saameeyay xaaladda bariga dhexe ee u dhaxeeyay Iran iyo Israa'iil in uu dhacay qarax uu ka dhacayna Bandar Abbas haddaba Bandar Abbas hadda waxa ka dhacay qarax xilligaas qarax ayaa dhacay maalmo saacado kadibna weerarkii waxa bilowday Israa'iil ay ku qaaday Iran dhinaca kale ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa beeniyay in qaraxa lagu dilay taliyihii ciidanka badda Iran laakiin warbaahinta Israa'iil iyo qaar kamid ah warbaahinta galbeedka ayaa sheegaya in taliyihii ciidanka badda dalka Iran qaraxaasi uu ku dhintay haddii taasi ay soo shacabado oo aysan noqonin inkiraad Iran ay inkirayso macnaheedu waxa ay tahay in Iran la galay oo dagaalkina uu bilowday waxa Iran dib dhigatana aysan jirin Iran waxay sheegtay hadii weerarkan uu bilowdo oo dagaalku uu noqdo mid si rasmi ah u dhaco oo Mareykan iyo Israa'iil ay Iran soo weeraraan waxa dhici karta bay tiri ama dhacaysa in dagaalka uu ku ekaanin dalka Iran laakiin bariga dhexe uu isla guban doono dalalka wadnaha farta ku haya sida weyn
loo sameeyay goobo dadku ay ku dhuuntaan iyo godad iyagana isdiyaarinaya. Waxa hadda wararka ka imanaya Imaaraadka ay sheegaysaa dowladda Imaaraadka Carabta muwaadiniinta Carabta iyo qoysaska boqortooyada in loo diyaariyo godad ay galaan haddii Iiraan ay duqeyn ku bilowdo gudaha Imaaraadka Carabta. tani mar kale waxa ay muujinaysaa ififaalaha ka taagan bariga dhexe inuusan ahayn mid hagaagsan. qaraxa maanta ka dhacay dekada Bandar Abbas ee koonfurta dalka Iiraan waxa uu tilmaan cad u yahay in ay jirto mar walba cabsi taagan. inkastoo dowladda Iiraan aysan sheegin qaraxan sababta rasmiga ah iyo waxa qaraxa uu ka dhashay ee wali ay sheegayaan inay baaritaan wadaan, haddana waxa cabsida cirka geynaya ee meel halisa gaarsiinaya in la sheegayaba durbaba in sargaal sare iyo mas'uul ka tirsan nidaamka Iiraan gaar ahaan ilaalada kacaanka Iiraan oo dhawaan lagu tilmaamay inay yihiin ama la geliyay liiska argagixisada oo ay geliyeen qaar ka mid ah wadamada reer Yurub in la sheego inuu halkaasi ku dhintay ma ahan arin fudud. waayo saaxiibada qiimiga lahow qaraxii ka dhacay magaalada Bandar Abbas oo ku taala koonfurta dalka Iiraan markaynu meesha ugu gudubno waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka. boqortooyada Sacuudiga waxa ay dhawaan xiriir la samaysatay Iiraan. xiriirkan waxa la sheegay inuu ah xiriirkii ugu qiimaha sareeyay, waxayna labada dhinac ku heshiyeen in la ilaaliyo kalsoonida labada dal isla markaana loo kala sheekaynin. Iiraan waxay Sacuudiga u xaqiijisay in dhinaca Iiraan Sacuudiga aysan ka filanin wax halisa. propagandada iyo wararka sheegaya in halista ugu weyn ay Sacuudiga ay leedahay Iiraan inay tahay inaysan sax ahayn ay dowladda Iiraan ku qancisay boqortooyada Sacuudiga. Sacuudiga dhankeedana waxay ballan qaaday in dhankeeda aan looga iman doonin isla markaana xiriirka labada dhinac iskaashiga ay noqon doonto mid la xoojiyo. sidoo kale dowladda Sacuudiga dhawaan waxay ku dhawaaqday inaysan ogolaan doonin in saldhigyadeeda uu ku leeyahay Mareykanka Sacuudiga inaan Iiraan laga weerari doonin. waxana warbaahinta iyo wararku ay soo bandhigeen in boqortooyada Sacuudiga ay Mareykanka ku wargelisay in saldhigyada Sacuudiga ee Mareykanka uu ku leeyahay aysan ogolaanin iyo hawadeedaba in laga weeraro dowladda Iiraan, taas oo loo arkayay in ay kor u qaadayso xiriirka labada dhinac. Iiraan ay siinayso kalsooni, laakiin caawa warka soo baxay war fudud ma maxaa dhacay marka? Amiirka tirsan amiirada Sacuudiga waa boqorka wiilkiisa marka amiir lagu yiraahdo oo waxa uu la dhashay Mohammed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga. amiirkan magaciisa waxa la yiraahdaa Amiir Khalid bin Salman. waa walaalka sida weyn ugu kalsoon yahay ninka hadda sugaya inuu la wareego ama qaato dhaxalka boqortooyada Sacuudiga oo Sacuudiga boqor ka noqdo. haddaba Amiir Khalid bin Salman waxa la sheegay inuu kulan qarsoodiya la yeeshay oo albaabada ay u xirnaayeen koox Yuhuuda oo u ololeysa danaha Israa'iil. kooxdan waxa ay ka wada hadleen xaaladda bariga dhexe. wada hadalkii waxa lagu soo qaatay sheeko yaab leh. Amiir Khalid bin Salman waxa uu la wadaagay baa la yiri kooxdii Yuhuuda ahayd in ay Israa'iil ka shaqeyso sidii Trump uu uga dhabayn lahaa hanjabaadiisa ah inuu weerarayo Iiraan. amiirka waxa uu yiri baa la yiri haddii uusan ka dhabaynin arrintaasi Donald Trump waxa ka dhalan doona cawaaqib aad halis u ah, waxaana xoogaysan doono nidaamka Tehran. Iiraan awood weyn ayay sii yeelan doontaa, taasna Sacuudiga, dalalka Carabta iyo Israa'iil intaba halis weyn ayay ku. warkani ma ahan war wanaagsan, waana war munaafaqad weyn tilmaamaya. boqortooyada Sacuudiga wali arintani kamay jawaabin ilaa inta warkan uu soo baxay. suurtagal inay dhawaan ka soo jawaabto hadalkani uu yahay been ama isku dir. waxaase la yaabay waxa hadalkan xilligan banaanka keenay iyo sababta kooxda Yuhuuda ahi ee uu la kulmay amiirka dhaxal sugaha walaalkiis ahna wasiirka gaashaandhigga boqortooyada Sacuudiga Amiir Khalid bin Salman. hadalkiisa waxa saacadan loo shaaciyay miyaysan ahayn in la doonayo in madax la isu geliyo boqortooyada Sacuudiga ee nidaamka Iiraan. haddii hadalkan uu dhab noqdo waxa ay dareemaysaa kalsooni darro aad u weyn oo niyad-jab ayay ku tahay. arintani ma ahan arrin sahlan ama hadalkani waa hadal miisaan culus leh. waliba waxa uu ku soo aaday xilli Iiraan loogu hanjabayo in la weeraro. haddii Sacuudiga ay tahay cidda u ololeynayso in Iiraan si degdeg loo weeraro, macnaheedu waxa ay tahay in Sacuudigu ay laba wajilaynayso. hadalkan waxa uu ku soo aaday xilli maanta sidoo kale warbixinada iyo warbaahintu ay sheegayeen madaxii hore sirdoonka Sacuudiga Amiir Turki Al Faisal oo kamid ah shakhsiyaadka
la tixgeliyo kuwa ugu saameynta sarreeya amniga iyo sirdoonka bariga dhexe ayaa waxa uu si cad u muujiyay in aanu jirin khilaaf dhaawici kara xiriirka istiraatiiji ee u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. hadalkiisa wuxuu si gaar ah u beegsaday warar iyo hadallo warbaahineed oo tilmaamayay ama buunbuuninayay ama kicin lagu tilmaamay sida uu isaga sheegay kuwaas oo isku dayay inay madaxa isu geliyaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. laakiin hadalka madaxan sirdoonkii hore Sacuudiga waxaa ka weyn xaqiiqda muuqato oo khilaafka Sacuudiga iyo Imaaraadka inuusan ahayn mid la qarinayo. laakiin maxaa isku soo beega hadalka ninkan madaxii hore sirdoonka Sacuudiga Amir Turki Al Faisal iyo hadalka laga keenay Amir Khalid bin Salman wasiirka difaaca Sacuudiga wixii soo baxaba wixii qarsoonba ama warkii jiraba cakaara iman waynu arki doonaa wixii warkan ku soo kordho ee hadaladan la xiriira. waya saaxiibada qiimiga loo qodobada markaa meesha uga gudubno intaynu gelin qaybaha ugu dambeeya barnaamijka oo aanu ugu tagi doono Israa'iil iyo danaheedii ay ka lahayd Masar iyo Rafah oo hadda la sheegay inuu meel wanaagsan u maray kooxda Netanyahu waa war yaab leh waan idin hayo iyo sidoo kale mudaharaadyo waaweyn oo gilgilay Minnesota oo socda. Trump iyo kooxdiisa waa lagu soo jeestay dadweynihii baa ku soo jeestay cadaankii madowgii Asiaankii Latinos ayaa hadda dhammaan waxay u muuqdaan in loo arkay Trump iyo kooxdiisa qatar Mareykanku wajahaya inay yihiin marka horese aynu ku yaraha kana walaalaha kaas oo ah in ay Masar ku cadaadinaysay maamulka Abdul Fattah Sisi in ay u ogolaadaan qaar ka mid ah dadka reer Gaza in Masar la geeyo xuduud Rafahna loo furo. hadda waxaa lagu waramayaa boqolaal reer Falastina inay Rafah ka gudbayaan kadib markii maamulka Netanyahu uu ogolaaday inuu furo marinka Rafah. goobtan waxaa hore u hayn jirtay ciidanka Masar. Israa'iil ayaa hadda la wareegtay. tani waxay ahayd niyad-jab weyn oo ay wajaheen dadka reer Gaza aadna ay ugu dhalileen go'aankaas dowladda Masar ay qaadatay in Israa'iil ay u ogolaato in xuduudda ay ciidankeeda la wareegto. wax ay Israa'iil meesha shaqo ku leedahay malahan. waxaana jiray heshiis waqti hore oo dhigayay in ay loo ogolaan karin in ciidamada Israa'iil halka ay la wareegaan ama ay soo galaan xuduud u dhaxaysa Gaza iyo Masar. boqolaalkan qoys oo Masaarida ogolaatay waxaa markii hore lagu sheegay in heshiiska uu sheegayay ama Masaaridu ay ogolaadeen dadka reer Gaza ee qoysaskooda ay ku sugan yihiin Gaza qaarka kalena ay joogaan Masar inay midoobaan oo ay Masar u soo galaan iyo kuwa doonaya in ay ka gudbaan Masar oo ay meelo kale u sii gudbaan in Israa'iil arrintaasi ay Masar ka caawiso taa bedelkeedana Israa'iil ay furto waxa loogu yeeray xuduudda Rafah si kaalmadii u soo gasho si dhaqdhaqaaqi halkaas uu furmo oo dadka reer Gaza ay u helaan nafis iyo fursad noloshooda ay ku maareystaan. dadka reer Gaza ayaa wali waxa ku yar raashinkii inkastoo isbuucan markii ugu horeysay Israa'iil ay ogolaatay kaalmadii si wanaagsan inay u soo gasho laakiin hay'adaha xuquuqul insaanka iyo kuwa cunnada qaramada midoobay dhammaan waxa ay sheegayaan raashinka Gaza soo galay wali inaysan ku filnayn. caruurta reer Gaza wali macluul ay hayso isbitaalada Gaza wali ma haystaan daawo ku filan iyo sariiro caafimaad. wali Gaza waxa ka jiro go'doon aad u daran inkastoo warbaahinta warbixinada sidii hore wax warar ay uga tabinaynin oo looga mashquulay riwaayada Trump uu Mareykanka ka shiday iyo hanjabaadda Iran oo noqotay focuska ugu weyn ama diiradda ugu weyn ee warbaahinta caalamka ay hadal hayso. khilaafka Donald Trump oo faraha badan iyo buuqa ayaa waxa uu ilowsiyay caalamka in laga hadlo ama aad looga faaloodo dagaalkii Gaza. waa la ilaabay macluusha iyo dhibaatada dadka reer Falastiin iyo dilka Israa'iil Gaza ay ka geysanayso. hadallada Trump isku dhaca wadamada reer Yurub iyo Trump iyo China taarifka uu saaray cashuuraha dalalka uu saarayo ayda Soomaalida uu caynayo faylka Jeffrey Epstein ayaa waxa looga mashquulayba qadiyadii Gaza dhanba. howlo kale ay iska wataan Israa'iil iyo Mareykan. waya saaxiibada qiimiga loo qodobka ugu dambeeya barnaamijka mudaharaadyo waaweyn ayaa ka socda gobolada ka tirsan gobolada dalka Mareykanka iyo magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay gobolka Minnesota magaalada Minneapolis iyo meelo kale. waxaa la xiray ganacsiyadii suuqyadii waaweynaa ayaa xiran dadku banaanka ay taagan yihiin. isbuucan waxaa la xiray qaar ka mid ah dadka u dhaqaaqayay ama sida weyn uga faaloonaya oo soo bandhigay tacadiga iyo xadgudubyada ay geysanayaan
kooxda barafka ama askarta barafka loo yaqaan ama aiska ee ciidanka Mareykanka gaar ahaan kuwa xuduudaha oo hadda bilaabay inay si daran u qabtaan dhawaan dadka Soomaalida iyo dadka soo galootiga ama dadka asal ahaan qaxooti ku yimid ama dadka aan cadaanka ahayn Mareykanka cad aan ahayn taas oo buuq badan dhalisay in dadkii Mareykanka qaarkood ay baasaboorada jeebka ku wataan qofka markuu doonayay inuu suuq wax ka soo iibsado waa in baasaboorkiisa ama dhalasho wax cadaynaysa inuu Mareykan yahay uu jeebka ku qaataa taas oo la sheegay inay dhaawac gaarsinayso xorriyadda qofka Mareykanka ha ahaada madow ha ahaada cadaan markay arrinta meesha gaartay wariyaal waaweyn iyo dadka u dhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa ka dhidhiyay dadka ka dhidhiyay waxa kamid ahaa wariyaha caanka ah in ka badan 30 sano u shaqeynaya warbaahinta dalka Mareykanka muddo dheerna kamid ahaa wariyaasha ugu caansan Mareykanka gaar ahaan telefishinka caanka ah CNN ninka loo yaqaan Don Lemon waa la xiray isbuucan waxa loo xiray mudaharaad ka socday Minnesota ayuu soo tabiyay gaar ahaan goob kaniisada ayuu live ka soo galay ciidanka Mareykanka gaar ahaan aiska iyo kooxda amniga wax loogu yeeray ayaa waxay u soo jabiyeen gurigiisa waa la qabtay waa la xiray waxa lagu eedeeyay in uu ku xadgudbay sharciga Mareykanka ee xurriyadda diinta iyo inaan arrimaha diinta iyo goobaha cibaadada aan la qashqashaad lagu sameyn karin waxa la sheegay inuu qashqashaad sameeyo oo uu foodeeyay laakiin maalin kadib waa la soo daayay markii la soo daayay Don Lemon waa uu hadlay waxa uu sheegay in lagu xadgudbay First Amendment waxa uu ogolaanay sharciga uu ogolaanayo in si xor ah uu hadlo waxa uu sheegay in ka badan 35 sano inuu si xor ah wararka u tabin jiray haddana uu wali wadi doono tani waa jawaab adag oo ay helayaan kooxda Donald Trump bal dhageyso Don Lemon oo arrintaasi si cad u sheegay bal in yar aan idin sharxo isagoo CNN-ka iyo warbaahinta kale la hadlayay waxa uu yiri waxa uu diiday in isaga la cabsi geliyo ama qalqal lagu rido ama xorriyadiisa lagu xadgudbo waa hadalkii uu sheegay oo aan idin soo koobayo wuxuu yiri in ka badan 30 sano ayaan ka shaqeynay wararka inaan gudbiyo xaqiiqda inaan soo gudbiyo haddana la iskuma dayi karo in la hor istaago waxay isku dayeen inay aamusiyaan kooxda Trump ayaa lagu eedeeyay in ay xorriyadda dadka warbaahinta ay wariyaasha iyo cid walba arrimooda ka soo horjeedo inay curiyaaminayaan oo isku dayaan inay aamusiyaan barnaamijkii fiidnimada waad kala socoteen Kow Somali Media waa inaga inta tan iyo kulanti dambe nabadgelyada rabbiga dushiina assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh